kulan ay maanta isugu yimaadeen odayaasha guurtida ee magaalada Caabudwaaq ay uga soo horjeesteen wada hadalka lagu dhameystirayay heshiiska Ahlusunna iyo Galmudug ee ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug iyagoona sidoo kale sheegay inay diidan yihiin habka wax wada qaybsiga beelaha Xasan Yare Cilmi iyo Muuse Geela Bulxan ayaa sidan u sheegay warbaahinta shir jaraa'id oo lagu qabtay degmada Caabudwaaq oo ay qabteen golaha guurtida waxaan ka digaynaa saddex qodob qodobka koowaad dadka nina reerkiisa baa laga martiyaay oo mudana la yiraahdaa nina marti baa la yiraahdaa oo uu ku haydaa inta aan midowga Galmudug xuquuqdiisa martida ka nahay ragna mudanaha ka yahay oo maamulayo waa diinay waana qaadacnay qodobka labaad bulboobka ka socda deegaanka dadka u dhaxeeya oo la qodahayo iyo kii hore oo dadkii laga barakiciyay ka maqan yahay ilaa gacantayada ay ku soo laabtaanna waa qaadacnay mana yeelayno qodobka saddexaad xasan sheekh maxamuud markuu aruursanayay dantii uu lahaa inuu ku soo baxana uu doonayay 11 beelood baa Galmudug lagu maamulahayaa wax qaybtuna ahaanaysaa ilaa ay ka tanasulaan ma yeelayno waana qaadacnay sidaa darteed anagu waxaan rabnaa Soomaalinimo iyo dawladnimo iyo qarannimo mar haday meesha ka muuqan weyday masiirkii ummaddeena mas'uul ka nahay waa qaadacnay kana qayb gali mayno haddaanu nahay guurtiga waxaan leenahay marti u noqda saacad kasta oo wax la qaybsanayo ama wax la dhisayo marti ahaadana waxna qaban kara ma aha waxaan ka soo horjeednaa oo annaan yeelayn oo aan qaadacayna qaybta socota oo wax lagu maamulayo oo annaan guddiga wax ku lahayn oo aan talena ka soo ogeysiinaynin waxna qaban kara ma aha midda kale dhulkan laga qodahayo baraagaha oo u dhaxeeya Cadaada iyo Caabudwaaq nin waliba intuu ka deganaa waa la ogaa anaga waxana loo ku yimid hadda waa Caabudwaaq ayadana wixii ka yimaada oo dhibaato ah baan ayadana ogeysiinaynaa ama dawladda federaalka aan ogeysiinaynaa ama midda Galmudug baan ogeysiinaynaa Ayla Cabdullaahi Jaamac Honkable TV Caabudwaaq